markale kulan wanaagsan barnaamijkeena qubanaha VOA wuxuu si toos ah idinkaga imaanaya stuudiyaha kontonaad ee VOA magaalada Washington DC. Hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa xaalad degdeg ah oo caalami ah ka soo saartay faafitaanka xanuunka Mpox ee fayraska ku dhaca daanyarada iyadoo dalka Congo iyo meelo kale oo kamid ah qaaradda Afrikaba laga dalbaday in tallaabo degdeg ah lagula tacaalayo faafitaanka fayraskan. geesta kalena dalka Sweden ayaa waxa uu shaaciyay kiiskii ugu horeeyay ee xanuunkan ah oo markii hore ka jiray qaaradda Afrika. sidoo kalena mas'uuliyiinta caafimaadka ee dalal kale oo ku yaala qaaradda Yurub ayaa ka digay inay suurtagal tahay kiisas kale oo dibadda kaga imanaya qaaradda. waxaa arintan inoo haya oo xafiiska wararka ee VOA nooga soo biiray wariyaha VOA Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. ugu horeyn Shirwac soo dhawow bal waxaad warbixin naga siisaa xanuunkan Mpox iyo waxa uu ka dhasho. maxamedow xanuunkan dabcan maalmihii ugu dambeeyay aad baa looga hadlayay isla markaana khubarada iyo walibaada caafimaadka oo hay'adda caafimaadka adduunka ugu horeysa faahfaahinaya ka bixinayeen sidaad aduba tilmaantay waxa uu waa virus asal ahaan ka yimaada amaba loo nisbeeyo dhinaca xayawaanka isla markaana aadamaha sidaasi ugu soo gudbaa iyadoo oo Mpox ama monkeypox loo yaqaan amaba furqa daanyarka haddaynu taasi ka nimaadno xanuunkan waxa aad la isu weydiinay xanuunada kala duwan iyo waliba saameynta ay ku yeelan karaan waxaana khubaradu say tilmaamayaan ilaa haatan bulshada loo sheegaya kamida waxyaabaha uu ku faafayo ee bulshada dhexdeeda ugu gudbayo dhinaca taabashada ama labada qof haday istaabtaan qofka jirkiisa oo jirka kale uu taabto dabcan sidoo kale waxyaabaha qofkan isticmaalay hadii lala sii isticmaalo tusaale ahaan oo kale weelka oo kale ay kamid yihiin haddii waxyaabo cabitaan qofku ku cabay ama wax ku cunay laga daba isticmaalo dabcan sidoo kale dhar uu qofku xidhay hadii laga daba xidho oo inta badan dabcan waxyaabaha ku faafay loo nisbeeyo kamid tahay sidoo kale meel uu jiibsaday ama mariyo iyo waxyaabaha uu adeegsaday maadaama maxamed oo xanuunkan sida ka wada warqabno waxyaabaha calaamadaha ugu waaweyn lagu gartaa ay kamid tahay finan aad u badan oo qofka jirkiisa guud ahaanba ka soo baxaya taasoo ah waxaan qarsoomi kareynin marka waxyaabahaas uu ka dhalanaya isla markaana ku faafay iyadoo calaamadaha qofka lagu arkayna ay kamid tahay xumad aad u daran jirko xanuuna dabcan sidoo kale iyo waliba firankaasi aan soo tilmaanay calaamado kale. waa tahay Cabdixakiin haddii aad isbarbar dhigto Mpox iyo xanuunka Covid waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin maxamed COVID-19 markaynu ka hadlayno iyo waliba xanuuno kale oo lamid ah oo dunida ka jira iyo waliba aaga xanuunkan ka dilaacay kamid tahay xanuunka isna la yiraahdo swine flu-ga waxa inta badan ay yihiin qaar airborne ka nooca loo yaqaan ama inta badan hawada soo raaca hase yeeshee kan saynu tilmaanay waa mid taabashada qofka ku faafaya ama ku gudbaya markaynu taasi eegno kala duwanaashahooda ama waxay uga dhigan tahay dunida marka laga yimaado faafitaanka iyo hanaanka u faafayaan sidoo kale waxaa jira in xagga calaamadaha ay ku kala duwan yihiin COVID-19 oo kale waxaad arkaysa qof aan wax calaamada lahayn hase yeeshee viruskiisida laakiin si xanuunkan Mpox calaamadihiisu wax qarsoomaya maaha waa la arkayaa oo xumadii iyo marka laga yimaado waxyaabaha ay wadaagaan firankaas oo kale wax qarsoomi kara maaha sida kale marka caafimaad ahaan aynu hoos u eegno waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin COVID-19 marka uu dunida ka dilaacay wax daawo looma haynin dabcan sidoo kale looma haynin wax tallaal looma haynin laakiin si xanuunkan Mpox dunida waxa yaala tallaal iyo waliba daawo way tallaal lagu tacaali karo taas waa nooc kamid ah waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin dabcan sidoo kale markaan eegno hanaanka faafitaanka iyo dhimashadana waa ku kala duwan yihiin maxay tahay sida ugu dhaqsiyaha badan ee lagu joojin karo faafitaanka cudurkan maxamed oo faafitaanka oo kale markaynu eegno haddaan in yar isbarbar dhigo tusaale ahaan COVID-19 sanadkii 2019 dhamaadkiisii markuu dunida ka bilaabmay muddo yar oo kooban oo 3 bilood ka yar ilaa 126 kun qof soo ritay iyadoo ay u dhinteen ilaa 4600 qof xilligaas wax ka yar 3 bilood xanuunkan Mpox kale isaga markaynu eegno 2022 ilaa 100 kun qof baa laga helay ilaa 70 wadan iyadoo ay u dhinteen wax 400 qof ilaa haatan gaaraya hase yeeshee faafitaanka markaynu eegno waxay kula tacaalayaan khubaradu dadka u sheegayaan in qofku aanu qofka aad ugu dhawaanin taabashada kale iska ilaaliyo waxyaabaha uu la isticmaalayo ka fogaado nadaafada aad u ilaaliyo isla markaana calaamadaha qofka marka uu isu arko qofka xanuunkaasi lagu arkay inuu meesha ugu horeysa goob caafimaad
caafimaad ee ugu dhow uu tago dabcan sidoo kale wacyigelinta dadka aadka loo xoojiyo isla markaana bulshada aad loo wacyigeliyo waa tahay aad baad u mahadsan tahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo nooga soo biiray qolka wararka ee VOA nolana faahfaahinaya xanuunkaasi furuqa daanyeerka